waxa meesha ku soo duulay xoogga lagu qabsaday Kismaayo waa Kenya horta laakiin cidda dabada ka wado meelaha ay ka kala yimaadeen waxa waaye Gaarisa oo Kenya ah Jigjiga iyo Dhagaxbuur iyo Goday oo kilarka shanaad ah iyo Qabri Daare kilarka shanaad wada ah Garowe iyo Gaalkacyo iyo Burtinle iyo Boosaaso oo Puntland ah dadkaasi waxay dadkooda ku kiciyeen isir ahaan inay isku isir yihiin ninba waxa la yiraahdo laba nin oo lagdamaysa madariirayso war lugta qaba lugta anaga kula maqlaayo yiri waxaan u sheegaynaa oo aan dhagahooda iyo indhahoodaba ku dhibcinaynaa abaabulka noocaasa wuxuu leeyahay abaabul kale oo u miisaaman buu leeyahay waa ka xunnahay waxaan u sheegaynaa dhulkan waxaa la dadkii 40 kun oo Itoobiyaanka iska cayriyay baala dhulka 3 kun oo Kenyaati dhul Soomaaliyeed ma haysan karto way tagayaan Kenyaatigu marka ay baxaan Kenyaatigu ki Gaarisa ka yimid ki Goday ka yimid ki Qabri Daare ka yimid ki Dhagaxbuur ka yimid iyo ki Burtinle ka yimid iyo ki Garowe Boosaaso ka yimid igaarta is arkayso igaartu waa is arkayaan maxaa diidaayo ilma adeeryaalo maxaa diidaayo ilaahay baa idinku dhaarinay hadii la isku bahaystay Gaarisa oo wadan kala ah Qabri Daare iyo Jigjiga oo wadan kala ah gobolada dhexe meesha ugu dambeysay Boosaaso rag joogo markay qabiil isku bahaysteen maxaa diiday Gaalkacyo laga soo bilaabo ilaa Kismaayo rag joogo waa rag dhulka lahaayay inaan u yeerana maxaa diiday ya war rag dhulkaas difaacooda laga rabo meelaha ay ka soo bilaawdaan aan idin sheegaya horta qof kasta oo xaq rabo ayaa difaaca dhulkaas markay Kenya qabsay laga rabo koow waxa laga rabaa raggii 50 kun oo Itoobiyaanka wadanka ka saaray dadkaasi meesha ugu badan yihiin ma taqaanaa waxay ugu badan yihiin furum laga soo bilaabo Gaalkacyo bartamaheeda koonfurteeda ilaa iyo Hoosigow dadka degan waay waxaan leenahay nala kuguma tiitiileeyo reer hebelow isku soo baxa nala kuguma tiitiileeyo waa diidanahay Soomaali dhiiga inaan daadina moogiye dhulka nagana laguma haysan karo nala kuguma hadii la tiitiileeyo waxa waaye nalama maqashiyo waxaan Soomaalinimadan rabnaa dawladdan rabnaa islaamnimadan rabnaa dadka Soomaaliyeed inuu hal family ay hal qabiil yahay dhulkuna ka badan yahay ognahay hadii laakiin san lagu sii socdo wallahi billahi tallahi waa dhaare mikrofoonka iyo buunka oo yeerina ka xigta hatta Kenya la haysan karin Itoobiya ka soo cadar ma haysan karto iska dhaaf qabiil isu yarto waxa waay marka afka ka dhowranina meelo fara badan ayaa la ka soo bahaystay sheekh Al Budligay u tahay arintan